mudanayaasha aqalka mudane iyo marwaba iyo xoghaynta waxaan idinku iyo warbaahintaba waxaan idinku salaamayaa salaanta islaamka. Assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. walaalayaal soo dhawaada. waxaan la qabaa walaalkay sanatarkii iga horeeyey iyo abukaatihii iga horeeyey intii ay sheegeen baan la qabaa. war hadde war yacni maxaa kuu haray waa la sheegay intii mudnayd. waxaan kaliya u soo baxay inaan adkeeyo, aan idinku adkeeyo, idinku dhiirigeliyo arrinta waqtiga. waxaan qabaa meeshaan 6 qof in layska hadeer la qabto maantay, yacni waxaan aada u raacsanahay maantay 6 qof in la qabto, lagu soo laabto fadhiga, loo codeeyo, gacanta loo taago si shaqadoodii berriba annagana culaysku nooga haro. waxaan nasan karnaa dhowrka beriyo ay shaqadaa ku maqan yihiin. arrintaa waa sakan garaynaya. walaalkay ragga iga horeeya walaalkay cabdi axmed dhuxulow baa ninkii meeshaan dalka ugu dhibka badnaa oo dhegdheera hadduu yiri waxa la dedejiyo bause maanta waxba keenin oo caqabada waa ku waafaqsanaa waxa la dedejiyo. marka dalka waxaan ogahay waxaa laysku qaabqaabinayay in la aado sida caadada ahayd. awal caadadii hore waxay ahayd markii saan kale dhacdo in la qaato muddo 20 cisho dadku soo danaystaan, soo diyaargaroobaan. waxay ahayd meel nabada iyo dal nabada iyo marxalad waxay ahayd dowladnimada oo sal adag baa jirtay. hadda waxaan la isku sheegayn sida hadda guddoomiyuhu u tilmaamay marxaladda dalkaani marayo maanta aan ku cibaadaysanna maantay inaan muddo gaaban intaan iska dayna tegiddii iyo safarkii. anigu ka mid baana inta cimrada ay rabto inay aado, laakiin maanta waxaan ka dhiganaynaa cibaado inaan ka dhigano, inaan wada joogno si aan guddoonka u dooranno, ka bacdina aan u gudubno. maadaama nala leeyahayba nala ku xuuxinayo wixii bulshada caalamka dalkan anagu xoolo aan soo saarno badan laguma wadee lagu wada waxoodii iyo deymankii iyo wixii dhan isku xiran yihiin. aan maanta dalka aan isku helino, maanta Soomaaliyana u helino, annaguna isku helino, golahana u helino weeye midda anigu aan oran lahaa aan ku cibaado ka dhigano arrintaas iyadaahi. maanta badbaado weeye waxaa aan u leeyahay saas. waa in dalkii badbaado, si loo badbaadana waxay tahay in bishaan gudaheeda dabcan soo dhammaadaan xubnaha naga maqan inay yimaadaan, la gaarsiiyo in dalku ilaa madaxweyne uu yeesho in la gaarsiiyo. waa la yeeli karaa haddii hadda la yidhaha meeshaan dalka ha laga dhigo 10 qof aan soo qabanan nidhaahno 10ka qof waxaa ka fiican 7 qof baa ka sahlan. nambarku kullama uu yaryahay awal waagi hore saasay ahayd. awal hore rootiinka iyagii hore muxuu baarlamaankii 10aad 6 qof bay ahayd iyo guddoomiyaha ku meel gaarka iyo xogeeyaha guud golaha ayaa intaa iskaashanaya. walaalayaal wax kale idinku beeri maayo, kaliya waxaan hoos aada uga xariiqayaa soo dhawaada intayadii meesha idinkaga soo horeysay. haddee inaana wax fiican samayn adinku waa garan kartaan. markee dalka ayaan qalalaasihii hadda uu galagaleen haddaan baarlamaankii 10aad uu wax fiican sameeyo. marka is ammaani mayno, laakiin waa tegi weyno, waa joognaa dariiqa saxa hadda allaha nagu ahdiyo. asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. mudanayaasha aqalka mudane iyo marwaba iyo xoghaynta waxaan idinku iyo warbaahintaba waxaan idinku salaamayaa salaanta islaamka. assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. walaalayaal soo dhawaada. waxaan la qabaa walaalkay sanatarkii iga horeeyey iyo abukaatihii iga horeeyey intii ay sheegeen baan la qabaa. war hadde
يعني maxaa ku haray waa la sheegay intii mudnayd waxaan kaliya u soo baxay inaan adkeeyo aan idinku adkeeyo idinku dhiirigeliyo arinta waqtiga waxaan qabaa meeshaan 6 qof in la iska hadar la qabto maantay yani waxaan aad u raacsanahay maantay 6 qof in la qabto lagu soo laabto fadhiga loo codeeyo gacanta loo taago si shaqadoodii bariba annagana culaysku nooga haro waxaan nasan karnaa dhowrka beriyo ay shaqada ku maqan yihiin arrintaa waa sakan gareynaya walaalkay ragga ugu horeeya walaalkay Cabdi Axmed Dhuxulow baa ninkii meeshaan dalka ugu dhibka badnaa oo dhagdheer ah hadduu yiri waxa la dedejiyo balse maanta waxba keenin oo caqabada waa ku waafaqsanaa waxa la dedejiyo marka dalka waxaan ogahay waxa la isku qaabqaadinayay in la aado sida caadada ahayd awal caadada hore waxay ahayd markii saan kala dhacdo in la qaato muddo 20 cisho dadku soo danaystaan soo diyaar garoobaan waxay ahayd meel nabada iyo dal nabada iyo marxalad waxay ahayd dowladnimada oo sal adag baa jirtay hadda waxaan la isku sheegayn sida gudoomiyuhu uu tilmaamay marxaladda dalkaani marayo maanta aan ku cibaadaysanna maantay inaan muddo gaaban intaan iska dayna tegidii iyo safarkii anigu ka mid baana inta cimrada ay rabtay inay aado laakiin maanta waxaan ka dhiganaynaa cibaado inaan ka dhigano inaan wada joogno si aan guddoonka u dooranno ka bacdina aan u gudubno maadaama nala leeyahayba nala ku xuuxinayo wixii bulshada caalamka dalkan anagu xoolo aan soo saarno badan laguma wadee lagu wada waxoodii iyo deymankii iyo wixooda isku xiran yihiin aan maanta dalka aan isku helino maanta Soomaaliyana u helino annaguna isku helino golahana u helino weeye mid aan oran lahaa aan ku cibaado ka dhigano arrintaas iyadaahi maanta badbaado way waxa loo aan u leeyahay waa in dalkii badbaado si loo badbaadana waxay tahay in bishaan gudaheeda dabcan soo dhamaadaan xubnaha naga maqan inay yimaadaan la gaarsiiyo in dalku ilaa madaxweyne uu yeesho in la gaarsiiyo waan la yeeli karaa haddii hadda la yiraahdo meeshaan dalka laga dhigo 10 qof aan soo qabanan diraan 10 qof waxa ka fiican 7 qof baa ka sahlan numberku kullama uu yar yahay awal waa hore asaasi ah awal hore rootinka yagii hore muxuu baarlamaankii tobnaad 6 qof bay ahayd iyo gudoomiyaha ku meel gaarka iyo xogayaha guud golaha ayaa inta iskaashanaya walaalayaal wax kale idinku beerimaayo kaliya waxaan hoos aad ugu xariiqayaa soo dhawaada intayadii meesha idinkaga soo horeysay haddii inaan wax fiican samayn adinku waa garan kartaa markee dalka ayaan qalalaasii hadda uu galeen haddaan baarlamaankii tobnaad uu wax fiican sameeyo marka is amaani mayno laakiin waa tagi weyno waa joognaa dariiqa sax hadda Allah nagu ahdiyo. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.